السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيار شرفت الله من أول بقى دريدة كجوكتان وحا إذن ريجينيا إن تكسكنوتان نبات قب بش برواقي هرمر يقول أن لسوكو بكرين هذا بقى وحا إذن هيا برنامج آد أقيمة بدن أن إسلايا برشدة وحوين بوترايا balse barnaamijkaasi intaanan u gudbin haddaad igu cusub tahay fadlan subscribe ii saar like iyo sharena waa ii muhiim. asxaabta hore ila joogtay waad ku mahadsantihiin la joogiina. waxaan idinka codsanayaa like iyo share inaad ii samaysaan commentina wixii fakara aad haysaan waad ku reebi kartaan waana tixgelin doonaa haddii allaha awood leh uu yiraahdo. haddaba daa barnaamijka gudo galo waa la soco qaybtii saddexaad sida aad ku iloobi lahayd qofka aad jecleed ee kuu nixi waayey meel cidlo ah kaaga tegay. waa nasiib darro qof qalbiga aad ku aamintay haddana meel cidlo ah kaaga tagay. wax kasta ka soo kabasho iyo dabo qabasho bay leedahay. ku dadaal naftaada in aadan u iqaabin qof aan u qalmin ee ku qadarin waayey meel cidlo ah kaaga tagay sabab la-aan iyo garasho xumo. waqti kale ha ku sii bixinin. ku dadaal in aad iska ilowdo fursad kale aadan siinin maxaa yeelay waa qof garashadiisii ay gaaban tahay doqonnimona ay u dheer tahay. mar hadduu ku qayaamay oo naftaada ku ciyaaray mar kale haddaad siiso fursad naftaada wuxuuba sababi karaa in nolosha dunida uu ku dhaafiyo qofkaasi naxariista daran. wax walba dunida waa ay ka dhacaan balse sida xaqiiqda ah waxay tahay qadar haday kugu dhacday waa inaad ilaahay ugu mahad celisaa balse aad ka soo kabataa oo ah inaad isticmaasho aqli iyo degnaan adoo allah la kaashanayo. jaceylka sidiisa waa imtixaan, farxad, murugo, dhibaato, faa'iido, khasaaro, guul, horumar intaba waa uu leeyahay. balse waxaa muhiim ah qofka markaasi jaceylka aad la wadaagayso inaad dareento marka horeba laba qof wax isku darsaday in aad tihiin, loona baahan yahay mar walba inaad ogaato tilaabta aad qaadayso iyo halka aad u socoto iyo foojignaan aada u sareeyo. maxaa yeelay qofka hadduusan foojignaan uusan sameynin dhibaato aada u weyn baa ku dhacayso. balse laakiin ka taxadar aad ku socoto waa ay adag tahay in dhibaato ay ku soo gaarto. maxaa yeelay qof waxaa tahay difaac adag ku jiro. laakiin mar haddaadan difaac ku jirin weerar baa lagugu soo qaadayaa, waa lagu dhibaateynayaa. qalbiyan baa lagu dili karaa, maskaxiyan baa lagu dili karaa, sumcad baa lagaa dili karaa. intaba ay ku soo wajihi kartaa. balse waxaa muhiim ah taxadarka mar walba in noloshaada ay qayb ka tahay.
badbaadadaana ay ku sugan tahay. haddaba fadlan haddaad igu cusub tahay subscribe ha iga iloobin. barnaamijkan qeybtiisii afaraad intaan ku wada kulmi doonana waxaa idinkaga tegayaa horumar, bashbash, barwaaqo iyo guul aan la soo koobi karin xilli walba ay idin tahay. asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.